kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey xaalada degmada Doolow ee gobolka Gado dhaqdhaqaaqyo dagaal oo hadda ka soconaya deegaanka Kulbiyow wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda u muuqanaysa in guud ahaanba gobolka Gado ay si buuxda gacanta ula wareegi doonto ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay diyaarad Kenyan oo siday ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo lagu qabtay degmada Doolow ee gobolka Gado xog iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa saaxiibayaal kusoo dhawaada balse marka hore intaanu faahfaahinta gelin waxaan idinka codsanayaa haddii aad nagu cusubtahay inaad subscribe inoo soo saarto isku soo noqod wanaagsan markaana haddii aynu ku bilowno degmada Doolow ee gobolka Gado waxaa lagu sigtay in halkaasi uu ka dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa si guud gacanta ugu dhigtay degmada Doolow ee gobolka Gado halkaas oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen saacadihii la soo dhaafay iyadoo wax xabada aysan dhicin ayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysteen in Doolow guud ahaanba gacanta lagu dhigo isla markaana gacantii Axmed Madoobe hadda ay ka baxdo Doolow oo ah xudunta gobolka Gado isla markaana dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay joojisay in diyaaradaha rakaabka halkaas ay ka degaan ayaa waxa hadda wararka la helayo ay sheegayaan in gacanta ciidamada dowladda ay u gashay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan ku shirsan gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa waxay leeyihiin kulamo degdeg ah oo ay wada yeesheen sidii guud ahaanba ammaanka degmada Doolow gacanta loogu sii hayn lahaa saraakiisha oo hadda kulankooda si toos ah uga socdo xarunta madaxtooyada ayaa waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in daqiiqadaha soo aadan ciidamada dowladda saraakiisha matalaysa ee iyagu halkaasi ka hadlaan dhinaca kale markaan u fiirino diyaarad la sheegay helicopter ah oo siday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland waxay gacanta u gashay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya diyaaradan oo ay leedahay dowladda dalka Kenya ayaa Jubbaland waxay ka soo qaaday ciidamo la rabay in degmada Doolow lagu xoojiyo balse ciidamada dowladda oo ka warhelay arrintaasi ayaa ku guuleystay in gacanta ay ku dhigaan diyaaradii iyo sidoo kale askartii saarneed intaba xaaladda degmada Doolow ayaa hadda mid kacsan dadka deegaanka ayaa la arkayay iyagoo wadooyinka waaweyn ee magaalada isugu soo baxaya kuwaas oo dhagtay u taagan tahay isla markaana ka cabsi qaba in gudaha degmada Doolow uu dagaal ka dhaco dadka deegaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Doolow oo aan la xiriirnay ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in lagu sigtay in dagaal uu gudaha magaalada ka qarxo balse ugu dambeyn gacanta ay u gashay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gobolka Gado hadda waxa uu muuqanayaa in uu ka sii baxayo gacanta Axmed Madoobe maadaama reer Gado mudooyinkii ugu dambeeyaba iyagu ay banaanka ka taagnaayeen siyaasadda Axmed Madoobe waxayna ku dhaleeshanayeen in kursiga uu iska sii fadhiyo haddii Axmed Madoobe meesha uu ka bixi lahaa dadka reer Gado waxay u muuqanayeen inay taageeri lahaayeen maamulka Jubbaland mas'uulka kale markaa qabto balse hadda fursad kale ayay heleen reer Gado oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay tagtay haddii reer Gado iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isgarab siiyaan waxaa muuqanaysa in Axmed Madoobe hal gobol oo buuxa gacantiisa ay ka bixiso hadda Doolow Garbaharey iyo deegaanada kaleba waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garbaharey ayaa lagu wadaa in isna saacadaha soo aadan uu ka hadlo qabashada degmada Doolow ee gobolka Gado Garbaharey ayuu ka waday sidii guud ahaanba dadka uu uga dhaadhicin lahaa in ay si buuxda u taageeraan dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka amniga oo hadlay waxa uu sheegay in Axmed Madoobe oo 60 kilomitir al-shabaab u jira uu dagaal ku qaadi waayo bedelkeeda ciidamo dowladeed oo 300 kilomitir u jira in dagaal uu ku qaado ayuu sheegay inay tahay mid ay iska caddahay in Axmed Madoobe uusan rabin in al-shabaab uu dagaal la galo waa sida hadalka uu dhigay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Garbaharey hadda gacanta waxay si buuxda u gashay dowladda Doolow sida ay si lamida Baardheere iyo sidoo kale deegaanada kale ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan si buuxda ay qayb kaga noqdaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay taageero u muujiyaan marka la eego dhinaca kale markaan u fiirino deegaanka lagu magacaabo Kulbiyow ayaa la soo warinayaa in halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa deegaanka dagaalka ayaa la xaqiijiyay in halkaasi lagu jabiyay ciidamada Axmed Madoobe ee weerarka soo qaaday ciidamada kale ee kuwa deegaanka ayaa iska caabin xoog leh waxa ay sameeyeen kadib markii ciidamada Jubbaland ay soo weerareen xaaladda goobaha lagu dagaalamay ayaa kuwa hadda degan inkastoo la filayo in mar walba dagaal uu ka dhaco wararkaasi wixii ku soo kordhay saaxiibayaal kuwa soo aadan ayaad ku daawan doontaan mahadsanidin